متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها، كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة maanta waxaan kaga waramaynaa sifooyinka wanaagsan mid ka mid ah taasoo ah tawaaduca ama istuldhiga, mid istuldhiga ama tawaaduca. Alle waxa uu ku amaanay tawaaduca cibaadurraxmaanka. Allah ku amaanay cibaadurraxmaanka waxa uu yidhi qaala tacaala وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن kuwa kuwa socda dhulka si degan ay ku jirto xasilooni iyo deganaansho oo kama muuqato isla weyni. Allah nabiga amraya tawaaduca waxa uu yidhi waqfid janaaxaka lilmu'miniin, u raarici dhinacaaga mu'miniinta, u raarici dhinacaaga kuwa ku rumeeyey una tawaaduc. nebigoo ka waramaya tawaaduca xadiisuu soo saaray Muslim, nebigu waxa uu yidhi wamaa tawaadaca axadun lilaahi ilaa rafacahu Allah. qof alle dartii dhulka iskuma dhigo ilaa alle baa kor u qaada. xadiis kaluu Muslim soo saaray, nebigu waxa uu yidhi ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yafqar axadun calaa axad walaa yabqii axadun calaa axad. alle waxa uu ii waxyooday inaa istuldhigtaan ilaa uu qofna qofka kale u faanin, qofna uu ku xadgudbin qof kale. alle waxa uu ina amrayaa inaan tawaaducno. nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inagu bogaadinayaa inaan tawaaducno. waxa tusaale inoogu filan tawaaduca ama istuldhiga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. dadka acraabiga u yimaada nebiga kamay dhex garanayn asxaabtiisa. nebigu waxa waa mid tawaaduc badan. xalqadeennu maanta halkaa inoo joogto. wasala allaahu wasalama calaa nabiyina Muxamed sala allaahu calayhi wasallam.